injiilka sida Yooxana u qoray cutubka 18 ciise markuu waxyaalahaas yiri wuu la baxay xertiisii oo kala gudbay tog Qidroon meeshay ku tiil beer uu galay isaga iyo xertiisiiba yuudasna kii gacan geliyay meeshaas uu garanayay waayo ciise marar badan ayuu meeshaas xertiisii la tegi jiray haddaba yuudas isagoo askar iyo saraakiil ka wada wadaadadii sare iyo farisiintii ayuu meeshaas la yimid laambado iyo siraado iyo hub sidaas daraaddeed ciise isagoo og waxa dhici doona oo dhan ayuu baxay oo ku yidhi iyaga kuma doonaysaan waxay ugu jawaabeen ciisihii reer naasareed markaasaa ciise wuxuu ku yidhi isagii baan ahay waxaana isaga la taagnaa yuudas kii gacan geliyey sidaa daraaddeed ciise wuxuu ku yidhi isagii baan ahay dib bay u socdeen oo dhulkay ku dhaceen mar kale haddaba ayuu weydiiyey oo ku yidhi kuma doonaysaan oo waxay ku yidhaahdeen ciisihii reer naasareed ciise ayaa ugu jawaabay waan idiin sheegay inaan isagii ahay haddaba haddaad i doonaysaan kuwan iska daaya ha tageene wuxuu saas u yidhi inuu dhammaado hadalkii uu ku hadlay oo ahaa kuwii aad siisay midkoodna ma lumin simoon butros haddaba isagoo seef haysta ayuu soo bixiyey oo wuxuu ku dhuftay wadaadka sare addoonkiisii oo ka gooyey dhegta midigta addoonkii magaciisu wuxuu ahaa maalkos sidaa daraaddeed ciise wuxuu butros ku yidhi seefta galkeeda ku celi koobka aabbuu isiiyey miyaanan cabbayn haddaba askartii iyo ninkii u sarreeyey iyo saraakiishii yuhuudda ayaa ciise qabtay markaasay xirxidheen oo markii hore waxay u geeyeen anas waayo wuxuu ahaa sodogii kayfas oo ahaa wadaadkii sare sannadaas kayfas wuxuu ahaa kii kula taliyey yuhuudda inay u roon tahay in nin keliya dadka u dhinto waxaa ciise daba socday simoon butros iyo mid kale oo xera ninkaas xerta ahaa wadaadka sare wuu garanayey wuuna la galay ciise barxadda wadaadkii sare butrosse wuxuu taagnaa albaabka agtiisa oo dibadda ah sidaa daraaddeed kii kale oo xerta ahaa oo wadaadka sare garanayay ayaa dibadda u soo baxay oo la hadlay tii albaabka ilaalinaysay oo butros ayuu soo geliyey gabadhii albaabka ilaalinaysay waxay butros ku tidhi adiguna ma waxaad tahay mid ka mid a ninkan xertiisa wuxuu ku yidhi ma ihi markaasaa waxaa taagnaayeen addoommadii iyo saraakiishii oo dab dhuxul ah sameeyey maxaa yeelay dhaxan bay ahayd wayna kulaalayeen butrosna wuu la joogay isagoo taagan oo dabka kulaalaya haddaba wadaadkii sare wuxuu ciise wax ka weydiiyey xertiisii iyo waxbariddiisii ciise ayaa ugu jawaabay bayaan baan dunida ula hadlay oo weligay wax baan ku bari jiray sunagogyada iyo macbudka meesha ay yuhuudda oo dhamm isugu timaaddo oo waxba si qarsoon uma odhan maxaad ii weydiinaysaa weydii kuwa maqlay waxaan kula hadlay bal kuwaasaa og waxaan idhi markuu sidaas yidhi saraakiishii midkood oo ag taagnaa ayaa ciise dharbaaxay isagoo leh ma saasaad ugu jawaabaysaa wadaadka sare ciise ayaa ugu jawaabay haddii aan si xun u hadlay xumaanta ka marag fur haddaan si wanaagsan u hadlayse maxaad ii dharbaaxaysaa anas haddaba wuxuu isagoo xirxiran u diray kayfas oo ah wadaadkii sare simoon butros ayaa taagnaa oo dabka kulaalayay haddaba waxay ku yidhaahdeen adiguna ma waxaa tahay xertiisii midkood markaasuu inkiray oo yidhi ma ihi addoommadii wadaadka sare midkood oo qaraabo ay ahaayeen kii butros uu dhegta ka gooyey wuxuu yidhi miyaanan beerta kugula arkin isaga haddaba butros mar kale ayuu inkiray oo markiiba diiqii baaciyey haddaba ciise ayay ka kaxeeyeen kayfas ilaa guriga taliyaha waxay ahayd aroortii hore oo iyagu ma ay gelin guriga taliyaha si aanay u nijaasoobin laakiinse inay cashadii iidda kormaridda wax ka cunaan bilaatos haddaba ayaa u soo baxay iyagii oo ku yidhi maxaad ku ashkataynaysaa ninkan way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen ninkani haddaannu ahayn xumaanfale kuma aanu soo gacan gelineen haddaba bilaatos wuxuu ku yidhi idinku qaata oo sharcigeenna ku xukuma yuhuuddu waxay ku yidhaahdeen xalaal nooma aha inaannu nin dilno inuu ahaado hadalkii ciise ku hadlay kolkuu sheegay siduu u dhiman doono bilaatos haddaba guriga taliyaha ayuu mar kale galay oo ciise u yeedhay oo wuxuu ku yidhi adigu ma waxaad tahay boqorka yuhuudda ciise ayaa ugu jawaabay maadaa iska odhanaya waxaas mise kuwa kalaa iiga kaa sheegay bilaatos ayaa ugu jawaabay ma yuhuudi baan ahay quruuntaadii iyo wadaadadii sare
ayaa ii soo kaa gacan geliyey maxaad samaysay ciise ayaa u jawaabay boqortooyadaydu tan dunidan ma aha haddii boqortooyadaydu tan dunida tahay midiidinyadaydu waa ii diriiri lahaayeen inaan yuhuudda la ii gacan gelin iminkase boqortooyadaydu tan halkan ma aha sidaa daraaddeed bilaatos ayaa ku yidhi haddaba ma boqor baa tahay ciise ayaa ugu jawaabay waa tidhaahdaa inaan boqor ahay taas ayaan u dhashay oo taas ayaan dunida u imid inaan marag u furo runta mid kasta oo kan runta ahu waa maqlaa codkayga bilaatos ayaa ku yidhi waa maxay runtu oo markuu sidaa ku yidhi mar kale ayuu yuhuudda u baxay oo ku yidhi eedna isagii kuma aan helin laakiin waxaad leedihiin caado inaan mid idiin sii daayo iidda kormaridda haddaba ma doonaysaan inaan idiin sii daayo boqorkii yuhuudda kolkaasay dhammaan mar kale qayliyeen iyagoo leh ninkan ma aha laakiin baraabas wuxuu ahaa wax dhece